intaanu qarax dhicin waxaan xasuustaa maalinta uu qarax dhacay habeenkii ka horeeyay ayaa sukaya dambeysay aniga isaga iyo dhalinyaro kale gaari baan wada raacnay meel ayaan shaaha ka wada cabnay oo habeen walba aan isugu iman jirnay oo inta badan shaaha aan ka cabi jirnay marka habeenkaasaan ayaa sukaya dambeysay xaafadiisaan geynay waa xasuustaa maalintii ku xigtayna waxa la yiri waa dhintay runtii aad bay yani qof xalay aad wada shaahayseen oo aad wada joogteen oo maalinta ku xigtana la yiraahdo geeridiisa lagu sheego waa dareemi kartaa taban dareenkaaga iyo shucuurtaadu sida ay noqonayso waa marka ilaahay baa naga jeclaaday allah u naxariistaan leenahay geeridana kullee qof walba way sugaysaa waqtigunba wala kala horeeya marka والله أستاذي واد ما سنتهاي ورياشو طبعا dhibaatooyin badan ay wajahayaan oo ay la kulmayaan Soomaaliya meelaha adduunka hadda wadamada waxa lagu tiriyaa adduunka ugu khatarsan xagga marka laga hadlayo tacdiyada iyo beegsiga lagu hayo wariyaasha wax hadda bilowdayna ma ah way soo jirtay wariyaal badan baa waxa weeye dhibaatooyin loo geystay kuwa waxa weeye la jirtilay kuwa la xiray kuwa la dilay marka dadkana day kullay wariyaashuna duruufo adag bay ku soo shaqeynayeen ilaa hadda ay ku shaqeynayaan oo waxa weeye qofka waxa suurtagal ah xitaa asagoo qofka mihnadiisa ku jira in la beegsado oo waxa ay qof oo damaanad qaadaya amnigaaga ma jiro marka caqabaduhu way iska badan yihiin wariyaasha Soomaaliyeedna meelaha ugu daran ay hadda ay ka shaqeynayaan magaalooyinka hadda sida Muqdisho oo kale iyo يعني waxa laga yaabaa qofka ka shaqeynaya warbaahinta dawladda inuu hadda uu ka dhib badan yahay dadka kale ee ka shaqeynaya kuwa private ka loo leeyahay marka caqabadku way aad bay u badan yihiin Soomaaliyana qofka ka shaqeynaya qofka wuxuu u baahan yahay saxaafadda naftirkeeda qof ku dhiirada oo runta sheega oo geesinimo leh ay u baahan tahay waxaa yeelay waa meel runtii riskigeedu u badan yahay qofka waxa la rabaa inuu go'aan inta qaato waxa weeye xaqiiqda waxa ay tahay inuu bulshada uu la wadaago waxa wadankiisu u yahay adduunka waxa weeye inuu la wadaago sidaas ay waxa weeye qofka sumcadiisa iyo waxa weeye sharaftiisa ay ku jirtaa marka sidaas aan isleeyahay waa sax wariyaashu aad baa loo beegsadaa oo inta badan hadda meelaha markay wax ka dhacaan oo kale dadka ay wax soo gaaraan ay ka mid yihiin ama iyagoo waxa weeye hawshooda ku jira ayaa si bareer ah waxa weeye marmarka qaar loo beegsadaa wariyaal badan baa Soomaaliyeed ayaa waxa weeye la dilay kuwana waxa weeye waa la xiray waa duruufaha wariyaashu ay ku shaqeeyaan kuwii hore la dilay iyo kuwa hadda joogaba runtii aad bay u badan yihiin dhammaanna kulley wayna taawanaysaa oo qof walba oo wariye Soomaaliyeed ah la dilay waa nagu hadaan wariyaal nahay waa inaan ka danqannaa maxaa yeelay waa wariyaashu dhan waa dad walaalo ah oo waxa weeye mihnadaas oo saxaafadda la yiraahdo ayaa na walaalaysay oo aynu ku midaysannahay marka dhammaan inta waxa weeye la dilay waan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto inta waxa weeye la dhaawacayna ilaahay ha bogsiyo inta xiranna kulley ilaahay waxaan ka baryayaa inuu si degdeg ah maaragtay ragaas xorriyadooda ay u helaan aniga si shakhsiyan hadaan kaga hadlo qof ama wariye aan saaxiibo ahayn oo geeridiisa si gaar ah aniga ii taabatay wuxuu ahaa weerarkii hadda u dambeeyay ee ka dhacay isgoyska Soobe qaraxii isgoyska Soobe 2 qaraxyadii hadda u dambeeyay bishii October 29 ayaan filayaa wasaaradda waxbarashada Soobe ka dhacay qaraxaas runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo mas'uuliyiin iyo waxa weeye ida shacab baa ku dhintay iyo wariyaasha halkaas ku dhintay waxaan ka xusi karaa Maxamed Ciise Koona oo wariye Soomaaliyeed ahaa runtii ninkaas aad baan isugu dhaweyn saaxiibo gaar baan ahayn oo inta badan waxa weeye ilaa iyo waxaan isla ahayn reer Suudaan si gaar ah ayaan xitaa isku xog wareysan jirnay isku sirqarsan jirnay waxaan xasuustaa nin horta runtii wuxuu ahaa wanaagsan oo inta qof insaan uu wanaagsan yahay oo afgaaban oo ahlu salaad ah oo kaftan badan
oo waxa weeye furfuran oo dadka aan dhibin dadka ku xadgudbin dadka waxa weeye la taliya dadka la fariista oo aan isla weyni iyo wax ku jirin qof insaan wuxuu ahaa runtii dhinac walba ka dhameystiran intaanu qarax dhicin waxaan xasuustaa maalinta uu qarax dhacay habeenkii ka horeeyay ayaa sukaya dambeysay aniga isaga iyo dhalinyaro kale gaari baan wada raacnay meel ayaan shaaha ka wada cabnay oo habeen walba aan isugu iman jirnay oo inta badan shaaha ka cabi jirnay marka habeenkaasaan ayaa sukaya dambeysay xaafadiisaan geynay waa xasuustaa maalintii ku xigtayna waxa la yiri waa dhintay runtii aad bay yani qof xalay aad wada shaahayseen oo aad wada joogteen oo maalinta ku xigtana la yiraahdo geeridiisa lagu sheego waa dareemi kartaa taban dareenkaaga iyo shucuurtaadu sida ay noqonayso waa marka ilaahay baa naga jeclaaday allah u naxariistaan leenahay geeridana kullee qof walba way sugaysaa waqtigunba wala kala horeeya marka walaalkeen ilaahay jannada firdaws ha ka waraabiyo reerkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka tagayna samir iimaan allah ka siiyaan leh wallahi ma aaminsani sababtoo waxaan isleeyahay wariyaashu xirfad iyo aqoon waxa weeye kuma yara kuwa badan oo waxa jira dhisan oo waxa weeye aqoonta iyo xirfadda saxaafadda waxa weeye qaar jaamacada kaga baxay oo bachelor iyo master iyo PhD ba xitaa la helaya iyo kuwa iyagu waxa weeye warbaahinta gudaha ka shaqeynaya oo muddo dhowr sano ah oo khibrad sanawaad marka ka shaqeynaya oo leh marka fikirkaas ma aaminsani sababtoo ah wariyaashu isku mid ma ahan dadku dad wax bartay baa ku jira dadka oo dhan ma oran karno ma taqaanaa waa wada xun yihiin ama xirfadoodu way liidataa waa laga yaabaa maybe way dhici kartaa dad oo xoogaa xirfadii sidii la rabay aysan ka ahayn ama aqoontoodu aysan dhamaystirnayn way dhici kartaa oo waxaan isleeyahay nambarkaasina ma weyna ma badna laakiin inta badan waa dad waxa weeye shaqadooda yaqaana oo howlkar ah oo khibrad qaarkood waxa weeye khibrad marka u leh warbaahinta waxa ay ka shaqeynayaan iyo waxa ay qorayaan iyo waxa kuwana waxa weeye hadda jaamacado ayay markaa kaga baxeen oo aqoontii ayay markaa ay leeyihiin wallahi aniga shakhsiyan maya aniga wax saameyn hadda oo igu yeeshay ma jiro aniga marna idaacadahan private-ka ka shaqeynayay oo barnaamij soo saara ayaan ahaa marna muddo hadda 7 sano ku dhawaadna warbaahinta qaranka ka shaqeynaya marka wax isdiidan ama wax caqabada aniga oo iga hor yimid ma jiraan wallahi هو سؤال في عنوي هذا وما صنتها أنا شخصيا أنا عيارها ضدك حسية كم جري وأبان عياري جري وأبان يرى أو سكول كان لجن جري وحلي أن عياري جري أو شخصيا ويجرتي لكن هذا جستي وحوي أنا كبدا مع عياره منا ضنايا ضدك أو حسية أو داودنا أنت بدل ما هي أو ضد واحد جري بوقتها أد وداوضة أو ciyaar walba raba inay daawdaan oo ama aysan kooxo gaar ah taageeraya aniga wax hadda oo ii gaar ah ama koox hebelan anigu aan shakhsiyan aan dhigi karo waa taageersanahay ama laacib hebelan anigu taageeraya ama inta badan ma daneeyo oo aniga waxyaabaha aan xiiseeyo aan daneeyo inta badan hadaan waqti helo inta badan waa wala shaqeeya hadaan jaanis helo waxaan jeclahay ama hiwaayadeedu ay tahay inaan wax akhriyo buugaagta iyo kutubada iyo waxyaabaha cilmiga ayaan inta badan xiiseeyaan jeclahay daawashadana inta badan waxaan daawdaa hadii television aan jaanis u helo inta badan aflaamta ama waxyaabaha oo filimada documentary-ga gaar ahaan hadda Al Jazeera oo kale qayb waxay leedahay Al Jazeera al-wathaa'iqiyya leedahay documentary-ga u qaabisan barnaamijyadaas oo kale waa xiiseeya waa kuwa aan daneeyo intaas aad ugu muhiimsan iyo akhriska iyo waxyaabahaas aan jeclahay inta badan wallahi heesuhu iskuma fiicni aniga heesaha ma dhageysto oo mana qaado oo dadka xifdiyo oo heesaha raaca ma ihi dhinacaas waxa weeye waa lagaga fiican yahay baan saasaan aaminsanahay laakiin gabayadu waa okay gabayadu waan dhageystaa
hadda gabayada oo sayidka oo kale xaaji aadan afqaloc oo kale gabayadaas oo kale oo weli gabayadan hadda dadkan abwaanada hadda soo baxay iyo kuwii hore weli kuwii hore aan anigu xiiseynaya aan jeclahay inta badanna waxa weeye bugaagta oo gabayada oo iyagoo qoran ama iyagoo maqal ah inta badan waan xiiseeyaa oo jeclahay والله هو سؤال في عن حرفة طبعا وأنا وقرشة يقوي هاي أنا وير أيان جعلان تري أنا وريد نقضه واجي سكول كان دقين تري أرضي ذا قفة وحبة وسول جيدين تري حلقة طابور كان كلمة ليلة كلمة الصباح أيان جيدين تري مركا أنا وير نوع حسوستا هذه أيان أنت بدن وحوي هذه هن bahal waxaa jiray waagi hore ishay hayga gelinaya wax la dhigi jiray raadiyo noocaasaan haysan jiray aan dhageysan jiray inta badan idaacadaha iyo TV-yadana aad baan u xiiseyn jiray waan hamin jiray mar uun inaan wariye noqdo yaraantayda ay ugu dhalatay dabcan waxaan oga baxana de hadda oo aan oga haranay meesha kuma jirto sababtoo ah waa takhasuskayga jaamacadda kuliyadda waxa weeye saxaafadan ka baxay raadiyaha iyo telefishinka waa takhasuskayga marka umalayn maayo inaan xirfadaas waxa weeye meel inaan oga baxo umalayn maayo inaan si laba jibaaro oo hadda waxa weeye wali waxa jeclahay aqoontayda inaan bachelor baan hadda haystaa oo saxaafada marka waxaan jeclahay ilaa master ilaa PhD inaan sii wado oo isla saxaafadaas takhasus kale xitaa aanu qorshayga ma aha saxaafadana de kullee waxaan aaminsanahay wali heerkal rabay ma kama gaarin waan rajaynayaa meelo fog oo fiican inaan ka gaaro mustaqbalka dhow insha Allah wallahi fariintayda waxay tahay waxaan kula dardaarmayaa ama tala ahaan u soo jeedinaya wariyaasha Soomaaliyeed guud ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta qaranka iyo kuwa ka shaqeeya idaacadaha private-ka iyo website-yada iyo warbaahinta digital media hadda adduunka horumaray oo social media waxaan u soo jeedinayaa in horta waxa weeye waxa ay qorayaan amaano ayaa loo baahan yahay qofka wariyaha maxaa yeelay kalimadda aad qoraysid waa amaano ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku weydiinaya maalinta aakhiro qofka waxa la rabaa waxa uu qorayo inuu ka run sheego dad baa waxaad arkaysaa magac wariye sheeganaya oo aan xirfadii iyo aqoontii waxba lahayn oo waxa weeye hadda si fudud buu qofka uu ku noqon karaa Soomaaliya marka la joogo wariye maxaa yeelay saxaafaduna de akhlaaqiyad iyo shuruuc iyo nidaam iyo qawaaniin bay leedahay oo qofka la rabo inuu u hoggaansamo waana wax la barto oo dadka qaarkii baa laga yaabaa hadda inay aaminsan yihiin 6 bilood baa kaliya qofka course ku filan anigu fikirkaas ma aaminsani qofka inuu bachelor qofkii diyaarin kara inuu diyaariyo uu qaato maxaa yeelay 6 bilood waxaad ku qaadatay iyo waxaad 4 sano meel u fadhiday dabcan isku mid ma noqonayaan mar walba qofka waxa weeye aqoontiisa inuu kordhiyo ayaa muhiim ah master qofkii ka diyaarin kara inuu ka diyaariyo PhD qofkii gaarsiin kara inuu gaarsiiyo mas'uuliyadana waxa weeye qof walbana wadanka mas'uuliyad ba ka saaran gaar ahaan qofka wariyaha maxaa yeelay kalimadda waxa weeye qofka uu dhahayo ama uu qorayo ama uu meel ka sheegayo way ka waxa weeye halis badan tahay waxa weeye hubka la ridayo ayaa waxay ka kalimadaas ayaa ka culus maxaa yeelay haddii maanta xabad la rido xabadaas waxaa laga yaabaa fogaanta ama meesha ay gaari karto ay wax ka dili karto inay kooban tahay laakiin qofka wariyaha haddii maanta uu hadal meel ka yiraahdo oo been ama hadalkaasi waxaa laga yaabaa bulsho dhan inuu waxa weeye uu kala geeyo ama dad badan inay saameyso kalimadaas ayaa laga yaabaa ama dhibaato weyn inay gaarsiiso maxaa yeelay kalimadda waxa weeye raadiyaha laga dhageysanayo ama telefishin ka baxaysa malaayiin qof bay ay gaaraysaa oo ay saameynaysaa marka maadaama qofkan qof wariyuhu uu yahay qof bulshada waxa weeye la hadlaya oo bulshadii tawjiihinaya oo bulshadii wax baraya oo bulshadii wax u sheegaya waxa la rabaa waxa la sheegayo hadallada iyo waxyaabaha wararka been abuurta waxa weeye qofka faafinaya inuu iska joojiyo maxaa yeelay qofka shakhsiyadiisa uma fiicna sumcadiisa way dhaawacaysaa qofka hadduu been lagu barto